liiska aan wareejinayo waxa kamid ah shaqaalihii rayidka ahaa ee madaxtooyada waxa kamid ah shaqaalaha kumeel gaarka ah ee madaxtooyada waxa kamid ah shaqaale la yiraahdo shaqaalaha isxilqaan oo iyaguna madaxtooyada ka tirsan intii muddadii dambe liiska deyn kooban oo madaxtooyada lagu leeyahay profile ay waaxaha oo dhami leeyihiin oo document badan ah isagoo kaasi electronic ayaan ku wareejinay iminkana aan hanti dhowrkana ku siin doono liiska hantida madaxtooyada waxa laala waxay hanti haysato waxay leeyihiin nambaro wayna tira kooban yihiin liiskeediina waa wareejinaynaa waxaan wareejinaynaa shaqaale raacay madaxweynihii hore maxamed cabdilaahi farmaajo oo u shaqayn doona si dadban madaxtooyada uga tirsanaan doona waxaan gudbinaynaa ciidan ilaalo ah liiskooda oo raacay madaxweynihii hore oo iyaguna madaxtooyada ka tirsanaan doona laakiin si dadban u shaqaynaya waxaan gudbinaynaa liiska gaadiidka madaxtooyada oo aanu gaar uga calaamadin doono ciidanka iyo madaxweynaha inta raacday oo ah gaadiid kooban aanu gaar uga calaamadinay waxaanu isagana wareejinaynaa waxqabadkii bishii January ilaa March oo electronic ah oo big document oo printerka aanu runtii uu hadda noo daabici waayay laakiin isagu ay ku wanaagsan electronic lagu wareejiyo structure-ka madaxtooyada inta waaxooda ka kooban tahay iyo qaab dhismeedkeeda isagana waa wareejinaynaa waa inihii aanu horena ula kala wareegnay haddana iyadoo hanti dhowrku joogo aan doonayn inaan la kala wareegno agaasimayaasha iyo shaqaalaha inta halkan ka joogta oo ah madaxdii iyagana dee waxaanu markii horena ku dardaaranay haddana aan kula dardaarmayaa in ay madaxda cusub iyo chief of staffka cusub iyo ku-xigeenadiisa si wanaagsan oo soo dhaweyn leh loola shaqeeyo hawsha loo fududeeyo maalmaha hore waa aad bay nin soo maray unbaa garanaya culayskeeda iyo runtii madaxtooyadu waa institution aad u ballaaran oo qofku aanu muddo kooban ku wada baran karin ama aanu ku koobi karin laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin waxaynu haysanaa oo madaxtooyada jooga agaasimayaal aad u koran oo competent ah oo dad mas-uula anigana runtii markii aan imi aad ii gacan qabtay oo aan wax fara badan shaqadoodii ay ka adag yihiin ay ii saamaxday inaan markaa aniguna ka jabgareeyo oo aan la qabsado waxaana rajaynayaa inay agaasimaha cusubna sidaas oo kale agaasimo waliba halkuu kaga beegan yahay uu kaga filaado inta uu agaasimuhu barnaamijkiisa iyo qorshaha uu madaxtooyada la damacsan yahay iyo horumarkiisa soo bandhigayo ee uu la wadaagayo marka koowaad waxaan u mahadcelinaa agaasinkii hore madaxtooyada qaranka waxa aan rabaa inaan iraahdo shaqo qaran ayaa soo qabateen qarankana meel kale oo kasii muhiimsan ayaan rajaynaynaa insha Allah inaad uga shaqeyn doontaan oo shaqada qaranka halkeeda aad kasii wadi doontaan waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo sidii wanaagsanayd muddadii la soo dhaafay aad u maamusheen madaxtooyadii qaranka shaqaalaha iyo guud ahaan shaqadii mataqaana dawladda baad u soo wadeen waxaan annagana rajaynaynaa insha Allah inaan meeshii ka sii wadno oo shaqadii dawladda halkeeda ay ka sii socoto gaar ahaan xafiiskii madaxtooyada shaqadii dawladda u hayay halkeeda ay ka sii socoto shaqaalihii halkeeda mataqaana halkooda ay shaqada ka sii wadaan waxaan u ballan qaadaynaa insha Allah inaan mataqaana aan si fiican u wada shaqeyn doono haddii alla idmo sidii adinkaba u wada shaqeyseen waxaan kale u ballan qaadaynaa in ma aragtay aan qofna lagu dulmin doonin shaqada isla markaasna qolo cusubaa timide qolaa baxaysa aanay ahayn dadka oo farsamo yaqaanada ah oo waaxyaha xafiisyada mataqaana xafiiskan ka shaqeynaya ay shaqadooda sidooda u wadan doonaan ay noqon doonto waxa la isku abaalmariyo qof walba iyo shaqadiisa iyo sida uu qabsado haddii alla idmo meeshaas iyo taladaas iyo dardaarankaas ayaan isku ognahay agaasimo maxamed dheere si gaar ah ayuu ii orient gareeyay asbuucii la soo dhaafay si gaar ah mataqaana isu wareysanay oo ma aragtay talooyin badan iga siiyay xafiiska iyo dabcan waxyaabihii mataqaana u soo qabsoomay waxa hadda mataqaana u qorsheysnaa iyo culeysyadii jiray meelaha ka imaanayeen iyo sida loo xallin karo ayuu talooyin badan iga siiyay adinkana waa ku mahadsantihiin xafiiska hanti dhowrka qaranka oo goobjoog ka ah
shaqadan mataqaanaa qaran ee maanta dhacdayna sidoo kale marka insha Allah waxaan rajaynaynaa dawlad horusocod leh oo halkii ay hadda joogtay mataqaanaa laga sii qaado wax lagu sii daro oo ma aragtay marka maalinta aan wareejinaynana meel halkan ka sii fiican sida hadda ay tahay ka sii fiican oo dabcan wixii hore loo soo qabto wanaagsan wax lagu sii daray ayaan rajaynaynaa insha Allah